maamulka degmada qoryaale ayaa kormeer ku tegay banka u dhaxeeya degaanka xood iyo sidoo kale degaanka qaraaro ka tirsan degmada qoryaale gobolka togdheer waxaana bankaasi qabsaday dab sababay inay gubtaan 43 guri oo ah kuwa ay deganayeen dadka xoolo dhaqatada ee ku nool deegaankaasi sidoo kale waxa halkaasi ku gubtay xoolo ay lahaayeen hal qoys oo kamid ah 43 kaasi guri ee gubtay waxaana dhulka gubta lagu qiyaasaa 25 kilomitir oo ka bixi jiray cawsku gudoomiyaha degaanka xood Yusuf Ibrahim Farax ayaa faahfaahin ka bixiyay khasaaraha ka dhashay dabkaasi aad waxyeello geystay inkastoo aan dadku dhamaanaysa maasha Allah tahay laakiin xoolo gubtayna jiraan guriyaha gubtayna markaan tiro koob ku soo sameynaa waxaan ka dhignay 43 guri marka waxaan ka jeedinaynaa anagoo maxay ceelina degmada qoryaale gudoomiyaha ku-xigeenka taliyaha booliiska oo yaba si fiican gurmadka u soo sameeyay waxaan leenahay halkan waxa ka dhacay waxoogaga aadka dadkii waxyeelada ku ah guriyaha gubtay waa 43 guri hal qoys baa arag ka gubtay xaaqil Salebaan Galdabar iyo sidoo kale xubno kamid ah odayaasha deegaanka ayaa iyaguna u mahadnaqay maamulka degmada qoryaale iyo cid kasto ka qayb qaadatay dabinta dabkaasi يا دبكاس قالي لبعضهم هو قيسي سبع أفراد القري يقول جوالي وأنا أقول أسعاري إلى ما هدي تد وحبكم مرة قرن دنيانا خير ما وحنا قالين أنا أقول بقيلة هنا علي كقبتي وحنا وباقي وشوينا وحلو هذه حياتي هذه دولتي هذا شعب كتاي وحنا وحكي سكر أفضل عليه يعني باقي وشوينا يا قصيصو وحنا نقله طب ميسان له وإن بدن بحيي أيها قبتي أو كدوري صدق يا فترة قريش خير أيو قبي حولي ولا قصاري يدتكي hal reer ba uu ka gubtay arigu gudoomiye ku-xigeenka degmada qoryaale Xasan Caydiid Jaamac iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska degmada qoryaale Cabdi Cabdilaahi ayaa iyaguna sheegay tallaabo laga qaadi doono cid kasto isku dayda inay gubto dhulka xoolo daaqsimanka waxaana faahfaahin ka bixiyeen khasaaraha ka dhashay dabkaasi meesha sida ay noo sheegeen dadka deegaanku 3 galabnimo ayaa waxa ka bilowday dab soconayay ilaa 11 habeenimo dabkaasi waxa uu geystay khasaare sida ay arki doontaan khasaaraha waxa uu gaarsiiyay baadkii dhulka ka baxay uu gaarsiiyay waxa uu gaarsiiyay dadkii deegaanka deganaa sida ay noo sheegeen dadka xoogaalka ee deegaanka deganay ilaa 43 qoys ayuu saameeyay dabkani lama waxaan mahadnaqayaa dadkii horta ka qayb qaatay daminta dabka wato inta waxa talaabo adag baan ku raacnaa dar booliiskana cidii lagu qabto ee deegaanka sida baan waxyeelaysay ama kama uga dhacdo ama camdi uga dhacday waxa weey talaabo adag baan ku qaadano dal ka dhigo gudoomiyaha degmada qoryaale Cabdiraxmaan Simiid Cawad ayaa sheegay in deegaanka gubtay gaadhay 25 kilomitir waxaana uu mahadnaqay dadka ku dhaqan deegaanada xood xayira waridaad iyo sidoo kale cid kasto ka qayb qaatay dab ku kacay dabkaas wax khasaaro oo dhimasho oo dada ma jirin dhaawacna ma jirin marka laga reebo hal qoys oo xoolihiisii uu dabkaas ku gubtay oo ku waxyeeloobay marka inta laga yimaado waxa gurmad badan galay dadkii deegaanka iyagu iskood suxu qaamay oo degmo ahaan iyo gobol ahaanba naga furtay hawshii waxaan halkan fariin uga diraya dadka deegaankan degan dabka waqtiyada dabaqa jirto la shidaayo guryaha lagu shidaayo ama meelka lagu shidaayo hadhow tolay oo la baqtin laga tagayo khasaaro badan bay keentaa tan bas la sheegay waxa khasaarahaas ka sababay gurigu ka kacay waka guryaha 43 guri saameeyay in dadku ay ka feejignaadaan halka ay dabka ku karsanayaan intii uu dabkaasi socday waxa sidoo kale ka qayb qaatay dabinta dabkaasi ciidamada booliiska degmada qoryaale oo kaashanaya dadka ku dhaqan deegaankaasi kuwaas oo ku guuleystay baqtinta dabkaasi Khaliil Barraawraan TV qaranka Somaliland Burco